agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland ayaa maanta si rasmi ah kulan ballaaran ula yeeshay ganacsatada gobolka Togdheer iyagoo halkaasina ganacsatadu ay ku soo bandhigeen cabashooyinkooda ku aadan arrimaha ganacsiga iyo sidoo kale waxyaabaha ay uga baahan yihiin wasaaradda ganacsiga ee maalgashiga Somaliland. kulankaasi waxa albaabada u furay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxle. magaceena waa intiina kharij ku baxday ganacsatada ee kambaniyada sharaa'iga ganacsatada dhexe iyo kuwa hoosaba sidaadeed aad bay farxad ugu tahay in afro kulankiinan isuduwaha wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee gobolka Togdheer Cabdi Maxamed Ismaaciil ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga u gudbiyay laba qodob oo ay ka cabanayaan ganacsatadu isagoo uu agaasimaha guudna ka codsaday in wax laga qabto. degmo waliba waxay doonaysaa cashuur inay ku qaato codsa joogtii halkan gaariga cashuur bay degmada u leedahay kee cashuurta degmada gaarigana waxa weeyaan customkiisi maxaa waa customer ku soo cashuuray cashuur ku hadheen ma jirto marka waxa weeyaan degmooyinka isdaba yaalaan way fara badan yihiin marka waa taata laga cabanay agaasime ta labaad waxa weeyaan waa cashuuraha rifayuga cashuuraha rifayuga waxaad moodaa inay ganacsatadu badana aanay aad u fahmin waxa weeyaan agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo agaasimaha waaxda maalgashiga ee wasaaraddaasi ayaa gabagabadii kulankaasi ka hadlay isla markaana ku dheeraaday in loo baahan yahay in guud ahaanba la kala xadeeyo ganacsiga Somaliland. waxa way qaybta ganacsiga misalan soo jeedintiisa iyo cashuuraha wax walba qaabka cid laga qaadayo iyo waxa ku haboon annaga leh qaadistana waxa la wasaaradda maaliyadda waxa laga yaabaa muxuu ahay labada wasaaradood marmar in la isku qaldo idinka waxa la idinku leeyahay waajibaad xuquuqna wad yeelanaysaa marka insha Allah taala waxaan ku dadaalaynaa wixii aan u soconay iyo kelmadda aniga igama baahno Maxamed baa inoo faahfaahiyay inta aad sheegteen idinoo soo gudbiseen waxaan insha Allah taala ku dadaalaynaa inaan gudbino oo aanu noqon safarkani mid maanta ku eg marar badan aan